bishan December 12 warqad ayaan soo saaray aniga oo aan uga hadlayay arinta ku saabsan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa qabyo waa run laakiin haddana wax badan ayuu qeexaya oo cadeynaya sida ay u shaqeynayaan iyo sida dastuurka wax looga bedeli karo iyo waxa uu dhiman iyo cidda ay tahay inay wax ka bedesho dastuurka ku caddahay qodobo cad ayaa qorayo nasiib darro madaxweynaha jamhuuriyadda amuurahaas oo dhan sida caadada u ahayd weligiiba dastuurka uu isaga indhatiri jiray waa ku sii socdaa weli inuu dastuurkii intii noo qornayd oo khilaaf aanu ka taagnayn ee la isku raacsanay qodobadoodii ee hore loo ansixiyay lagu dhaqmayay 8 sano ku dhawaadka la soo dhaafay inuu sii dardaro oo mar walba oo sii waxeeyo warqadaas waxaan ku sheegay xilligii dastuurka dib u eegistiisii wixii la gaar lahaa shaqadii laga qaban lahaa lama qabanin hadee in markaa si sharci ah oo qaanuunka dastuurka sidoo qorayo waafaqsan in sidii loo qaban lahaa la sii qeexo maadaama sidii hore ay suuroobi weyday warqadaas aad iyo aad ay u cadeeday waxay tixraacaysaa qodobada dastuurka ah ee faraya in asaas la qabto iyo baarlamaanka federaalka labada aqal ka kooban waajibaadkiisa qodobka 136 faqradiisa labaad aad iyo aad ayaan u xusnay waxay ahayday in labada aqal ee baarlamaanku isku yimaadaan arintaas ay shir ay ka yeeshaan resolution ama qaraar ay ka soo saaraan qaraarkaasi madaxweynaha xafiiskiisa la geeyo madaxweynuhu markaa wareegto dikreeto madaxweyne ku soo saaro kadibna baafinta rasmiga ah lagu soo qoro sidaas waaye habka sharciga ah ee nidaamka waafaqsan واجبك دستوري أهي أو فريو بشا ديسمبر أفري لباتن كيدي وحا قدوميها قولها الشعبك راليقا هذا بشا ديسمبر لحي 8 كيدي قدوميها قولها الشعبك وحو قوري ورقط أنا لبي طبعاً كان ورقدي سو صاري وكسرت قدوميها قالها شعبك قدوميها أقل كسر مدحوينها لحي طبعاً كي بيش قدوميها قالها شعبك ورقد قرأ وقعد سنة لبضع أقل إن يسوي مادان وأرنتاس لقى جوابه سيدو قانون قبل دستور قبل المرسيو بلانتاس الشلي وأربعة أي سيدا يقول مقالها على قبطي إن لبضع أقل برلمان كويسكوي مادان نصيب درو وحد عضي مدحوينه إنه أرنتاسي وكبوس أذاعي شركي وذا جركة ها لبضع أقل برلمان كأيال الله هاي مدحوينه إنه ديدي كدبنا ذكرت الصاري ما أنت ذكرت اسمك أو وحنا أفراتك بيش ديسمبر ما أنت ذكرت اسمك وح قانون دستور وأود مدحوينها بيعسكن تهمجره مدحوينها دستوركو إلاليها دستورك واي وحد دستوركو سير عادته أهد ولدي بدستوركو نعمري جري مركلو هذا ما أنت دستورك نعمري dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego madaxweynaha jamhuuriyadda xafiiskiisa shaqooyinka ka bilaabo karo asiga xafiiskiisa waa xadidan yihiin shaqada ugu weyn ugu muhiimsan ومدحوينها جمهورية حفيز كيسا كبلابطو أيضا مالك عن كسر بلابن مقعابس برايم مينستر كواي شققل والرسمي مركز دي حالة إجرام واقوني شققل والرسمي ومدحوينها جمهورية حفيز كيسا كبلابط تايم جرتو اسكدا دستورك وحلا قبل دلقي دستورك لو حيائي دستورك ملا مقعيسي دمان مدحوينها حق لها شرع لها إنه ماشي بالله بروسيس كدستور كوحلوجة قبنا يا دستور كقرية وأنا سيد عن المامي لا بدأ أقلوا كلمة أو برلمان قرار كصبحه قرار كاس مدحونا أنتوا أقبل إنه ذكرياتك صاروا ذكريات هذا سمركا إن بعرفين الرسمي قال لك ماشي سيكون مهتا ماشي اسمه بالله بتا ودعت أو قيحان أو لقرني مدحونا ما أنتوا وحنا سميه dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa in xusuustooda dib ugu noqoto waa dictatoriyada ismaheedii oo hore loo sii wado talaabka loo qaado shalay guddigii doorashooyinka oo la isku khilaafsan yahay oo kala dhiman
oo dowlad goboleedyadii ay ka maqan yihiin qaarkood oo la leeyahay saraakiishii hebel iyo hebel iyo hebel ah iyo civil servantskii hebel iyo hebel ah ayaa ku jira qaanuun ma aha ayaa shalay jadwal uu ka soo saaray madaxweynuhu jadwalkii ii soo saaray dhaqsada jadwalkii ii soo saaray maantana tanuu ku xijiyey berri maxaa la filayaa madaxweynaha laga sugayaa dalkaani ma waxaa loo celinayaa in dekreeto madaxweyne lagu xukumo dastuurkii oo la laalay sow la micna ma aha yah dastuurkii jamhuuriyadda federaalka oo la laalay sow la micno ma aha dekreetada maanta madaxweynaha uu soo saaray dadka Soomaaliyeed ha dhugooda soo noqdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dictatornimadii dhismaheedii ayuu dabaq kale ku sii daray maanta dhismihii dictatoriyadda uu dabaq ku war dalkan waa dal dimuqraadi ah dastuur uu leeyahay ummaddu ay ku heshiisay madaxweynuhu dhowr maro horena waa kuugu baaqnay waxaan kuugu baaqayaa wadada madax hoggaanka ah ee aad ku socoto wadadii saxda ahayd maahan wadadii Soomaali ku heshiisay maaha wadadii lagu daawoobayay ee dalkan dib ugu soo kaban lahaa maaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ayaa tahay laakiin xaq uma lihid qaanuunaad madaxweyne ku tahay ogow madaxweyne qaanuunka iyo dastuurka haddaad dardarto waxaad dardaraysaa waa madaxweynenimadaada waa xilkaaga inta kaaga hartay waa xushmadii aad lahayday ee dastuurka aad dardaraysaa uu ku siiyey ee xafiiska aad ku fadhida waaye kursiga aad ku fadhidaad hoose dab uga soo qabanaysaa aad ka burburi waysaa ogow sax ma aha madaxweynaha waxaan ugu waaninayaa ugu caqli celinayaa kula talinayaa inuu ka noqdo dekreetadii maanta shalay la tashi ma ahayn waxa uu guddiga dastuurka madax bannaan iyo guddiga korjoogteynta labada aqal uu la yeeshay madaxweynaha warbixinay siiyeen aniga xogta aan hayo sida saxda ay u tilmaameen madaxweynaha wadada saxda madaxweyne waa sidaasay ku dhaheen dhig jalaq uma siin waxaan rabaa inaan baaq kale u jeediyo labada guddoon ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa looga fadhiyaa shaqadan inay qabtaan waa shaqadoodii ayaguna cudurdaar uma heli doonaan madaxweynaha dekreeto ku soo saaray anigana waa iska fadhi meel waa dhageysanay waajibkoodii dastuuriga ah ay gabeen ayay noqonaysaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka intaba war hooy dastuurka laguma tuman karo qof iska male institutional iska leh waajibaa idinka saaran waajibka idinka saaran gudta madaxweynaha waajibkiisa ma ahan mana u dalageed uma wakiilan kartiin madaxweynaha meelaad ugu wakiilateena ma jirto xataa walaalayaal war dowladnimada aan ilaalino war qiimo badan inoogu fadhidaa dayacaad ma gasho ninkan walaalkeena madaxweynaha hadduu qaldan yahay baarlamaankiyow gacanka qabashadiisaad leedihiina gacanta ka qabta sharci dejin adika iska leh sharci wax ka bedel baarlamaankaa leh oo labada aqal ka kooban maanta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ma lahan idinka dhaafi mayso eedeeda waxbaa ku leedihiin labada guddoomiyow ama guddoonka labada aqalow eedda waxbaa ku leedihiin golaha shacabka ee aqalka sare xildhibaanada ka tirsanow waxaad ku leedihiin eedda waxbaa ku leedihiin qabta shaqada oo dastuurka idin dirsaday haddaad qaban weydaanna sababtaad u qaban weydeen iyo cidda idinka hortaagan inaad qabataan caddeeya ummadda Soomaaliyeed u sheega dhagahooda ha maqlaan ismoogeysiis ma aha isdhinac marid ma aha dalkan dekreeto laguma xukumi karo madaxweyne maxamed cabdullaahiyow dekreeto laguma xukumi karo Soomaaliya waqtiga dekreeto lagu xukumayay maanta meesha aan joognay dekreeto dalka lagu xukumana soo dhigtay yeeli mayno shacabka Soomaaliyeed ma yeelaayo ka joogan leenahay agreement waxay ku daafurtay adeegyada xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si amaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay
bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE